madaxweynaha cusub ee Soomaaliland ayaa kulamo gooni la qaatay diblomaasiyiin isugu jira qaramada midoobay midowga Yurub iyo sidoo kale wadankaasi Turkiga waxa uu sidoo kale madaxweynaha la kulmay madaxweynihii hore ee Soomaaliland warbixintaasi waxa goorreed magaalada Hargeysa inooga soo diray wariyahayaga Caydaruus Cabdullaahi Bershiya madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa xarunta aqalka madaxtooyada Soomaaliland kulan kula qaatay madaxweynihii hore ee Soomaaliland Daahir Riyaale Kaahin oo hadda dalka ku sugan kulankaasi ayaa ujeedadiisu ahayd sidii uu madaxweynihii hore mudane Daahir Riyaale Kaahin uu madaxweynaha cusub ugu bogaadin lahaa guusha uu ka soo hooyay doorashooyinkii madaxtinimada ee dhawaan dalka Soomaaliland ka qabsoomay isla markaasina uu talooyin iyo tusaalayaal ku saabsan hawlaha horyaala ula wadaagi lahaa madaxweynaha cusub ee dhawaanta la doortay madaxweynihii hore ee Soomaaliland mudane Daahir Riyaale Kaahin ayaa hambalyada guusha madaxweynaha cusub kadib waxa uu ku dhiirigeliyay inuu si anba qaado dimuqraadiyadda iyo horumarka ay Soomaaliland gaadhay intii ay jirtay waxaana ugu bushaareeyay inuu mar walba diyaar u leeyahay wixii talooyin ah ee midhadhal uu arko isla markaasina uu la wadaagi doono wixii khibrada iyo waayo aragnimo ee uu ka dhaxlay muddadii uu dalka madaxweynaha ka ahaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Mujaahid Muuse Biixi Cabdi ayaa isna geestiisa waxa uu madaxweynihii hore uga mahad celiyay booqashada iyo hambalyada uu soo gaarsiiyay waxaana uu sheegay inuu ka mid noqon doono dadka uu talooyinka ugu badan la wadaagi doono kulanka labada madaxweynihii hore iyo madaxweynaha cusub ee dhawaanta la doortay ayaa ku soo dhamaaday jawi farxadeed waxaana labada dhinacba muujiyeen inay si hufan uga wada shaqayn doonaan gebi ahaanba arrimaha ku saabsan horumarinta Soomaaliland geesta kale madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ay weheliyaan madaxweyne ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici wasiirka wasaaradda qorsheynta Dr. Sacad Cali Shire iyo xubno kale oo ka tirsan hoggaanka xisbiga muxaafadka ee kulmiye ayaa waxay xarunta madaxtooyada kulan kula qaateen isla maanta diblomaasiyiin sarsare oo ka socda midowga reer Yurub Turkiga iyo qaramada midoobay waxaana diblomaasiyiinta uu madaxweynuhu kulanka la qaatay kamid ahaa madaxa xafiiska siyaasadda qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya Mr. Jeff Ismail Alberto Vaid oo ah wakiilka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliland iyo wakiilka dawladda Turkiga u fadhiya Soomaaliland Mr. Cali Noyan waxaana diblomaasiyiintani kulankani ku guddoonsiiyeen hambalyo ay ka sidaan madaxda dalkooda iyo kuwa xafiisyada ay wakiilka ka yihiin waxaana sheegeen inay si dhow ula shaqayn doonaan madaxweynaha cusub iyo xukuumaddiisaba diblomaasiyiintani waxay bogaadiyeen doorashadii madaxtinimo ee dalka ka qabsoontay 13 bishii November ee sanadkani waxaana sheegeen inay ahayd mid Soomaaliland u soo hoysay guulo hor leh kuna tilmaamay tallaabooyin muhiim ah oo xagga dimuqraadiyadda sidoo kale waxay diblomaasiyiintani uu madaxweynuhu gooni-goonida ula kulmay si isku mid ah u sheegeen inay si hagar la'aan ah ula shaqayn doonaan madaxweynaha cusub iyo xukuumaddiisa kuna dadaali doonaan inay sii wanaajiyaan xiriirka ay Soomaaliland la leedahay guud ahaanba wadamada caalamka iyo qaramada midoobay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa isna geestiisa uga mahad celiyay diblomaasiyiintani booqashada ay ku yimaadeen Soomaaliland iyo kulanka isaga la qaateen waxaanu sheegay inay ka go'an tahay sidii kor loogu sii qaadi lahaa xiriirka diblomaasiyadeed iyo midka dhaqaale ee Soomaaliland la leedahay dunida inteeda kale Caydaruus Cabdullaahi Ismaaciil Bershiya telefishinka caalamiga ee Soomaali Cable Hargeysa